but also establishing police presence across liberated areas, thus ensuring shirkan ayaa ahaa xog ururin ku saabsan qorshaha tayeenta ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana ku baxaya ilaa 45 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo shir gudoominayay waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay xoog saarayso sidii dib habeen ballaaran loogu sameeyay lahaa ciidanka booliska Soomaaliyeed. wasaaradaha amniga maamul goboleedyada dalka, taliska ciidanka booliska Soomaaliya, hay'adaha deeq-bixiyaasha ee Soomaaliya ka taageera dhinaca amniga, dawladaha Germany iyo UK ayaa iyaguna goobjoog ka ahaa. Shirkan ayaa inta badan waxaa lagu soo bandhigay caqabadaha iyo sidii loo xoojin lahaa ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxaana maamul goboleedyada ay sheegeen in loo baahan yahay in la dhiso dugsiyada tababarada ciidanka booliska oo haatan kaliya ka shaqeeya dugsiga tababarka Jarnaal Kaahiye oo soo saara saraakiil xigeenno iyo ciidan khibradiisu aad u sareyso. wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa sheegay in barnaamijkan dib habeynta ciidanka booliska uu ahmiyad u leeyahay guud ahaan dalka. shirka halkan aan ku qaban maanta wuxuu ahaa shirki lagu kobcinayay ama sugidda amniga ee dalka oo dhan. sidoo kale waxay shirkan uu ka hadlayay tayeenta ciidanka booliska Soomaaliyeed labadiisa heerba, heer federaal iyo heer maamul goboleed ah. waxaana ka soo qayb galay taliyaha booliska, wasiirada maamul goboleedyada, agaasimayaasha, taliyayaasha booliska maamul goboleedyada, sidoo kale ninka ugu sareeya UN-ka, safaaradaha waxaa ka soo qayb galeen oo Europe, sidoo kale UK iyo Germany intaas ka soo qayb galeen iyo wadamo kale oo goobjoog ka ahay. saddexdaas wadan ee Europe EU-da ay raahdeen iyo Ingiriiska iyo Germany waa saddex deeq-bixiyaasha ahaayeen. barnaamijka waxa loogu talagalay lacag dhan 45 milyan oo dollar ah. qaybtiisa hore waa la ansixiyay. waxay soo codsadeen baahida ay qabaan maamul goboleedyada oo dhan. wejiga labaad oo ahaa marka maanta si fiican u soo gabagabay waxay soo codsadeen inta badan waa la ogolaaday waxyaalo kale oo cadeemo yar maahan inta badan waa la ogolaaday. wasaaradda amniga ayaa sidoo kale ka qaybgalka booliska howlgallada ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab deegaanada laga xoreeyay iyo sidii loogu saleyn lahaa baahiyaha maamul goboleedyada in ay helaan ciidan agabkiisu ay dhameystiran yihiin. shabeellaha hoose waxaa noo qorshaysan in ciidamo gaar oo deegaanka degan la qoro, tababar la siiyo. ciidamadaas marka la qoro oo tababar ku dhamaaday kadib in deegaankooda lagu celsho ee deegaankooda ay ka noqdaan booliis. dawladda Soomaaliya waxaa u qorshaysan deegaan walba marka laga xoreeyo cadawga Soomaaliyeed in dadka deegaankaas in la booliisiyo ama la ciidamo laga dhigo oo booliis ah si ay u hantaan amnigooda. qolo walba iyada u madax banaan baahidooda maamul goboleedka ayaga soo gudbiseen. wasaaradda amniga federaalkan baahidooda ku taageeraysa. qolo walba iyada baahidooda soo bandhigatay. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Jarnaal Bashiir Cabdi Maxamed ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka booliska Soomaaliyeed ay heegan buuxa ugu jiraan guud ahaan amniga dalka ee qayb weyn uga qaadan lahaayeen. waxaana inta badan uu sheegay in ay u baahan yihiin in la qalabeeyo ciidanka booliska Soomaaliyeed. Cabduqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.